warmurtiyeed wada jir ah kulanka afraad ee wada tashiga wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir kulanka warmurtiyeedkiis harudhac shirka afraad ee wada tashiga u dhaxeeya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho Soomaaliya wuxuuna socday shirkaasi maalmihii 5 ilaa 7 2022 shirka waxa martigeliyay oo arabna halka ay ugu mahad celino maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta caafimaadka iyo guud ahaan gobolka Banaadir maamulkiisa shirka waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta kala duwan ee hogaaminayeen wasiirada caafimaadka heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir waxa aad loogu lafaguray arrimo masiiri u ah la xiriirka horumarinta tayeynta ee isla xisaabtanka nidaamka caafimaadka Soomaaliya shirka waa tashiga afraad ee wasaaradda caafimaadka dalka ayaa ujeedkiisu ahaa number 1 qodobka koowaad kala warqaadashada iyo falaqaynta xaaladda guud ee caafimaadka ee Soomaaliya 2 dib u cusboonaysiinta balaqaadyadii wadajirka ahaa ee wasaaradda caafimaadka la xiriiray sii wadida xoojinta wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir qodobka saddexaad in dib u eegis lagu sameeyo lana dardargeliyo mashaariicda caafimaadka ee kala duwan qodobka shanaad xal u helidda caqabadaha qaar ee ka taagan mashaariicda ay wada fuliyaan wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaas waxay ahaayeen qodobada guud ee shirka jadiisu ahaa iyo muhiimadda laga wada hadlayay shirka waxa lagu heshiiyay qodobada soo socda 1 shirku wuxuu bogaadinayaa wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa wasaaradda caafimaadka federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir waa qodobkiisa koowaad oo ah bogaadin wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhaxaysa wasaaradda dhexe ee federaalka wasaaradda caafimaadka ee heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir qodobka labaad waxa shir ka soo baxay in la joogteeyo kulamada wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka heer dowlad goboleed iyo maamulka caafimaadka gobolka Banaadir qodobka saddexaad in la joogteeyo shirarka farsamo ee ka dhaca heer maamul goboleed iyo heer federaal si loo horumariyo hanaanka isku xirka mashaariicda caafimaadka qodobka afraad in la dedejiyo lana joogteeyo kulamada guddiga hagida mashaariicda ee hogaamiyaan agaasimayaasha guud halka daafaafaya waxa lagu heshiiyay waxa la dhisay guddi loo yaqaan steering committee oo ay hogaaminayaan agaasimaha guud ee dowladda federaalka iyo agaasimayaasha dowlad goboleedyada shirkaasi guddigaasi waxay hagayaan oo ay warbixin ka dhageysanayaan si joogto ah mashaariicda caafimaadka ee ka socota Soomaaliya oo dhan wixii go'aamo ah oo ka soo baxana waxay la wadaagayaan oo gudbinayaan golaha wasiirada oo wasiirka caafimaadka federaalka uu jeergareynayo in la dardargeliyo qiimeynta iyo qandaraas bixinta hay'adaha iyo shaqaalaha dhammaan mashaariicda maalgeliya bangiga adduunka waxaa jirta mashaariic bangiga caafimaadka adduunka uu maalgeliyo oo Soomaaliya ka socda kuwaas oo loogu talagalay inay adeega caafimaadka ee Soomaaliya ka caawiyaan waxaa jirtay inay dib u dhacday heshiisyadii laga gali lahaa cidii fulin lahayd hay'adii ka shaqeyn lahaa mashruucaas iyo shaqaaleysiintiisa shirkan waxaa ka soo baxay in la dedejiyo lana dhameystiro qandaraas bixinta hay'adahaas ka shaqeynaya mashaariicda caafimaadka iyo shaqaalihii loogu talagalay gaar ahaan hadda carab ku dhufto mashruuca loo yaqaan damal caafimaad oo Soomaaliya ka caawin doona 5 gobol oo Soomaaliya kamid ah waxa la isku waafaqay waqti baa loo qabtay hadii la in la dhameystiro inta sanadka ka dhiman waxa la wixii shaqo oo ku dhameystiran sida hay'adaha iyo shaqaalihiisa waxa lagu heshiiyay qaabka maamulka dhammaan mashaariicda u dhaxeeya wasaaradda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir waxa lagu heshiiyay qaabka loo maamulayo wixii hadda ka dambeeyay mashaariicda caafimaadka ee yimaada iyo kuwa hore u socdayba structure ama qaab maamul oo wasaaradda federaalka iyo dowlad goboleedku ku wada xiriirayaan ayaa shirka lagu heshiiyay isagoo faahfaahsanna ay wasiirada iyo
agaasimayaasha dhammaan dowladda waa lala wadaagay marka wixii hadda ka dambeeya si meesha laga saaro wixii khilaafa iyo wada shaqayn la'aanta habraac la isku raacay ayaa laga gaaray wixii hadda ka dambeeya sidii loo wada shaqayn lahaa xaaladda abaarta iyo saameynta ay ku yeelatay adeega caafimaadka dalka waxaa shirka ka soo baxay oo la isku raacay in abaarta hadda waddanka ka jirta ay saameyn ku yeelatay adeega caafimaadka shirakan waxa uu soo jeediyey oo uguna baaqay dhammaan cid kasta oo caafimaad ka shaqaysa in la dardargeliyo ka jawaabista xaaladaha caafimaad ee keentay abaaraha meelaha ugu daran oo saameynta ay ka yeelatayna wasaaraduhu si joogta ah inay uga wada shaqeeyaan in la gaarsiiyo adeega caafimaad si looga jawaabo abaaraha loona yareeyo saameynta ay ku yeelanayso hooyada ee dhallaanka iyo bulshada dhammaanteed ugu dambeyntii shirku wuxuu bogaadinayaa uguna baaqayaa dhammaan cid kasta ay khusayso in gurmad degdega lala gaaro gobollada ay ka soo cusboonaatay gobollada degmooyinka ka soo cusboonaaday colaaduhu ayna u baahan yihiin in lala gaaro qalab iyo daawo ayaa shirkanu soo jeedinayaa intaasi waxay ahayd shirka qodobadiisa ka soo baxay saxaafaddana waa la wadaagaynaa